nabadgelyo dhegeystayaal waa mar kale barnaamijkii taariikhda gobolka Hiiraan. gobolka Hiiraan gobolka Hiiraan gobolka Hiiraan gobolka Hiiraan gobolka Hiiraan beledweyne waa xarunta gobolka Hiiraan. gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay 8 gobol ee dalka Soomaaliya xornimada ay ku qaadatay 1960kii. waana gobolka kaliya ee ilaa iminka aan la kala jibin ama aan aysan ka farcamin gobollo kale. waana gobol wuxuu ka mid yahay gobollada ugu faca weyn iminka gobollada jira ee 18 gobol. gobolka Hiiraan ayaa waxa uu xuduud la leeyahay gobollo aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin gobolka Galguduud, gobolka Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose, Baay iyo Boqol. waxaa cirifka ka saaran xuduudda dalka Itoobiya ee uu la leeyahay dalka Soomaaliya. beledweyne waa xarunta gobolka Hiiraan. waa magaalo meesha ay ku taalo ay ka dhigayso mid aad muhiim ugu ah isu socodka dadka iyo ganacsiga Soomaaliya iyo waliba qaybo ka mid ah Itoobiya. waxa maray laba jid oo muhiim ah. waa wadada isku xirta Soomaaliya koonfur iyo waqooyi iyo jid laami ah oo isku xira Soomaaliya iyo Itoobiya. waxayna u dhowdahay Saudinta Soomaaliya iyo Itoobiya. waxa degan qabaa'il fara badan. beledweyne waa magaalo madaxda gobolka Hiiraan waana magaalo taariikh dheer leh marka loo fiiriyo waqtigii la dagaalamayay gumeystigii Talyaaniga. magaalada beledweyne waxaa mara webiga Shabeelle kaasoo ka yimaado dalka Itoobiya. magaalada beledweyne waxaa dhex mara wadada dheer isku xirta gobolada koonfureed iyo kuwa waqooyi ee dalka Soomaaliya. magaalada beledweyne waxay ka kooban tahay 4 xaafadood oo kala ah Buundweyn, Holwadaag, Kooshin iyo Xawataako. magaalada beledweyne waxay ku taalaa dhanka waqooyi ee caasimadda dalka Soomaaliya waxayna u jirtaa qiyaastii ilaa 335 kiiloomitir. magaalo ku taalla wadnaha dalka Soomaaliya waa Buula Burte. magaalada Buula Burte waxa marka gudaha Hiiraan la eego ay kaalinta labaad uga jirtaa xagga dhaqaalaha laga helo beeraha iyo kastamka. waa magaalo isku xirta magaalooyinka Jalalaqsi iyo xarunta beledweyne. waxa kale oo ay tahay buundada isku xirta waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya. aniga Buula Burte aan joogi jiray aniga xaaskaygaba
sanad ahaayeen 86 ilaa 89 oo Bulobarti oo waqtigaas meel nabad ahayd oo adiga qof juuq u dhaxaya ma leh wax xabad ma arkaysa waa meel nabad leh iyo caano fiican marka ninkii macalinkeygu ahaa wuxuu ahaa nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Faarax Karamo waa nin af Ingiriis aad buu yaqaan waa iga badiyay ka waran isaa ii baray prepositionka iyo waxa af Ingiriis waa ii baray ka waran marka dadka Soomaaliya waa dad wanaagsan degmada Jalalaqsi waa degmo ku taala bartamaha Soomaaliya gaar ahaan waxay ka tirsan tahay gobolka Hiiraan Jalalaqsi waa degmo qadiimi ah waxaana mara webiga Shabeelle dadka ku nool waxay u badan yihiin dad qeyro socod ah na jecel wada noolaanshaha kuna mashquulsan xirfadahooda oo ah dhaqashada xoolaha iyo beerashada beeraha labadaas xirfadood baana lagu yaqaanaa dadka reer Jalalaqsi Jalalaqsi waxa ay leedahay iskuulo hoose iyo dhexe isbitaalka Beledweyne waa isbitaal aad weyn oo isbitaalada ugu weyn gobolada dhexe dadka bukaanada ee soo gaaray waxay kala yimaadaan sida kasanaad Soomaaliya Itoobiya dadto waxay ka yimaadaan gobolka Bakool waxay ka yimaadaan gobolka Galguduud dhanka Hiiraan soo xigto waxay ka yimaadaan gobolka Hiiraan isbitaalka wuxuu leeyahay qaybo fara badan uu leeyahay runtii waa isbitaal aad weyn capacity-giisa aad weyn yahay isbitaalku wuxuu u qaybsamaa qaybta emergency-ga iyo qaybta OPD-ga ama bukaan socodka iyo qaybta qaybaha jiifka oo naftooda u kala qaybsamo dadka waaweyn ama rag iyo dumar u kala qaybsan iyo caruurta qaybta la seexiyo iyo qaybta maternity-ga iyo qaybta nafaqa darrida iyo qaybta qalliinka hadda aan gobolka Hiiraan ayaa waxa uu yahay gobolada taariikh ahaan faca ku leh dhinaca siyaasadda iyadoo walibana ay ka soo jeedaan siyaasiyiin caan ka ah dalka Soomaaliya oo uu ka mid yahay madaxweynihii ugu horeeyay jamhuuriyadda Soomaaliya Allahu naxariisee mudane Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde iyadoo uu ugu dambeeyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan madaxweynaha iminka talada dalka haya mudane Xasan Sheekh Maxamuud shakhsiyaad kale oo caan u ah ayaa ku jira dadka ku dhashay ama ka soo jeeda gobolka Hiiraan gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka mid yahay gobolada dhinaca khayraadka hodanka ku ah sida beeraha iyo waliba macdinta kala duwan gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya waxaa dhex mara webiga Shabeelle oo ay degmada Jalalaqsi iyo deegaano badan oo hoos yimaada gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya beerihiisa inta badan waxay ku tiirsan yihiin webiga Shabeelle oo dalag badani uu ka soo go'o dalagga beeraha gobolka ka soo go'o inta badan waxa loo qaadaa gobolada Galgaduud Mudug iyo dhulka ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya oo xuduud ay wadaagaan gobolka Hiiraan markaynu si guud aynu uga hadalno beeraha gobolka Hiiraan iyo dalagyada inta badan ka soo baxa ayaa waxaa ka mid ah qudaarta nooca la isticmaalo iyadoo loo qaado gobollo ka tirsan dalka Soomaaliya wax soo saarka qudaarta iyo raashinka qaarkiis kama soo go'o degmooyinka Beledweyne Bulobarti iyo Jalalaqsi oo kaliya laakiin waxa jira deegaano badan oo gobolka hoos yimaada kuwaas oo uu maro webiga Shabeelle isla markaana beero fara badan ay ku tiirsan yihiin si kastaba ha ahaatee dadka ku nool gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya waxay hadda ay bilaabayaan in ay wax soo saar badan oo dhinaca qudaarta iyo dalagyada raashinka ay soo saaraan
si kastaba ha ahaatee dadka ku nool gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya waxay hadda ay bilaabayaan in ay wax soo saar badan oo dhinaca qudaarta iyo dalagyada raashinka ay soo saaraan. dhaqdhaqaaq ganacsi aad u ballaaran ayaa ka muuqanaya suuqa xoolaha ee magaalada Beledweyne kaasoo lagu iibiyo xoolaha noocyada kala duwan geela, ariga iyo lo'da. ganacsiga magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa mid maalinta ka dambaysa si kooxaha kala duwan ee magaalada Beledweyne kuwaas oo ka xogsada qaadista xoolaha nool. maalin walba waxa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ka ambabaxa gaadiid aad u fara badan oo xoolaha nool u qaada dhinaca iyo deegaanada Puntland halkaas oo loo sii iibgeeyo wadamada khaliijka. barashada iyo tacliinta gobolka Hiiraan ayaa sii korortay iyadoo markii hore ay ka jireen iskuulo sare dhexe iyo kuwa hoose balse haatan lagu soo kordhiyay jaamacado dhowr ah oo ay ka mid yihiin jaamacadda Beledweyne, jaamacadda Balaasma iyo kuwa kale oo tacliin iyo tayo sare leh.
dowladooda iyo dalkooda nool waxa uu yahay argagax ku rida iyo jabhad iyo jeercad umada waa kumandosta waa toona jeexiyaasha socod u gaara ayaa iyagu leeyihin kaasi waxa uu yahay mid ku rida argagax iyo naxdin iyo qalbi jabbaha umada qabiir isku dayaha in uu soo qadaysto umada Soomaaliyeed